الله وبركاته دمان شعبي الصومالي ميل walba daafaha dunida aad ka joogtaan soo dhawaada halka aad nagala socotaan waa difaac qaran TV barnaamijkani waa muhiim hal la share gareeyo waa xog xasaasiya anagu xilligan adag oo dalkanaga uu marayo waxa weeye dhaxdhaxaad kama noqonayno xasan dhiiqada uu ku jiro kuma taageerayno qof walba ha share gareeyo maantay ugu daran tahay heesti maxay ahayd من عيري وليقي عيبي كما فوقاتي عاوي ودرنتاي حقي بان عقصدا دولة فدرالك دلك إثيوبيا عينو درس كنهي أيا ساعدها سو صعدو كل واقي دونتو أقونسيقا جمهورية دا سومالي لاند أيضا راعي دونتو ودادي أي دولة دا إسرائيل راعي إثيوبيا نؤغنهي إن أي هايسة جمهورية حرتها قولا كامدة كم شهر قادة قاركودنا السقل دان كو هايسة إثيوبيا أغنهي إن مدحتو يدا جمهورية فدرال كالصوماليا سفارة دي أي كتالو أرنتاس أيا وحي كديرت أيضا انتاس أو بيدبا دقن أو لوغ دقن أو بلد دولود هايسة أو قربهاري هايسة أو بورنوبا أو بردالة هايسة أو فرو هايسة أو ديسور هايسة أو انتاس قعنتي دي كل جيران كل مشار قادتو مقالة الدولة نشرع الدركو هايسة أيا وحي كديرتي سفارة دقن أي كتالو مقالة مقدشة حارونتا مدحتو يدا حفيز كالرئيس الوزارة أكتيسة أيا وحي كديرتي inay aqoonsato Somaliland raacdana dhabihi ay raacday dawladda Israa'iil waayo Israa'iil iyo Ethiopia ninkii laba dal u maleeyo anigu hal dal baan u aqaana Yuhuudda Afrikada madow iyo Yuhuudda Carbeed labadaasaan u aqaan Yuhuudda bariga dhexe iyo Yuhuudda East Africa u aqaana Ethiopia qofkii taariikhdeeda yaqaan Yuhuudda hareeraysan baa leedahay way ku dhawaaqaysaa taa maxay marka keenaysaa in waxay ku cadeynaysaa dalka iyagu hoggaan dalka midnimadiisa iyo madax banaanadiisa ixtiraam difaaci kale in uusan joogin xasan gurguurta iyo kooxdiisa maraq iyo muufo iyo ku hay inay ku fashilmeen dalka siyaasadiisii arrimaha dibadda iyo tii gudahaba ayna xaq tahay ummadda Soomaaliyeed in gacmaha isqabsato laga badbaadiyo dalka qodobka kale xiga waxay tahay ilaa iyo hadda waxaa la baacsanayaa la caayaya la afxumaynaya xildhibaanadii beesha reer Sheekh Isxaaq ee 40 sano Soomaaliya u joogay midnimada ummadda Soomaaliyeed uu ugu weyn yahay Cabdi Xaasha Cabdilaahi oo maareeyo oo aad garanaysaan 40 sano u dambeysay midnimada Soomaaliyeed dawlad kastaba ku dhex jiray taagnaa Cabdi Xaashi oo Soomaalinimada u qiiroonayo oo Fiyaanbiira ku dhashay ayaa waxaa la leeyahay iscaday waa dhaqankii Cabdi ilay uu ku sameyn jiray jil ogaadeen ayaa xildhibaanada Isaaqa lagu toojar gareynaya waxaa leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud baa soo wacay wuxuu leeyahay message soo diro shir jaraa'id qabta sida ugu dhaqsiyaha badan dabadeedna mowqifkiina cadeey shir jaraa'id bay shaqo qabteen waxay yiraahdeen anagu cirra waa taageersanahay ee Soomaaliya xuquuqda aan ku lahayn kamaan helin way cadeyn mowqifkoodii maxaa hadda loo eryanaya maxaa gabadha maskiinta ah gobsan la yiraahdo xildhibaanada ah fiqi iyo gruubka ciyaar suuqa ah maraq iyo muufo cayrsanayaan maxaa loo eryanaya war gorgorada gabadha ka fuqa war gabadha gorgoradeeda ka fuqa war nimanka odayaasha ah ee u yimid midnimadoonka dalka Soomaaliyeed ka fuqa shaatiyadooda ayaguna waxaan leenahay inay is ilaaliyaan sidoo kale wadooyinka guryahooda laga baxo iyo kuwa laga soo galaba ciidamo dharcadaha lagu daadiyay eeraboorradana sawiradoodii baa la dhiga waaran baa laga dhiga qofka bixi kara male oo reer waqooyi ah oo xildhibaan ah oo beesha reer Sheekh Isxaaq ama habar awal ama arab ama habar jeclo ama habar yoonis oo ka bixi kara magaalada Muqdisho ma jiraan eeraboorkana waa ka xiran yahay qodobkaasi taasaan ugu gudbaynaa sidoo kale shirkii matalaalaca ee heritage ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo martigeliyay ninkii la qorqor ama mooryaanka madowsa u taqaanaanba uu martigeliyay waxa ka soo baxay Shimbarayo heesa
laakiin laba qodob baan aad iyo aad anigu aad iyo aad ii soo jiidatay maadaama uu cabdiraxmaan caydi shirkaas uu qabtay asagoo aan garanayno dhaqankiisa iyo shaqada uu hayo iyo ajansiga uu yahay iyo jaajusan intuu aan garanayno laba qodob baa soo jiitay qodob xaliimo yarey marwa xaliimo yarey oo dignatigeedii iyo sharafkeedii iyo karaamadeedii iyo cirdigeedii ayadoo gabarha ilaalsatay tirine ma ninkii anigoo shaqaalo dowladeed iyo asagoo shaqaalo dowladeed ah iigu hanjab haddaad kismaayo timaada xabad baan kugu dhufanayaa baa inta hoolka dhuusamareeb iigu soo galaan u sacbinaya u istaagaya no never sharaf iyo karaamaad leedaha xaliimo yarey marwa sharaf laa tahay qiimo leh aad iyo aad baan arrintaas iyada kaaga mahad celinaynaa guulaysaan ku leenaha hadal kaloo aad ii soo jiita wuxuu ahaa dhahay ninkii cabdiraxmaan cayinte oo u shaqaynaya heritage oo ajansiga ahaa ayaa asaguna wuxuu yidhi xasanow way dhammaatay siyaasaddii muufaysiga siyaasaddii muufadii qalalnayd aad marna etoobiya maraq u dooranaysay marna aad kenya maraq u dooranaysay marna aad xagga u dooranaysay way dhammaatay waxaan ka tirsannahay uu yidhi bariga africa oo etoobiya iyo kenya iyo tanzania iyo uganda hal daloo cambaareeya ma aragteen maye waxaan ka tirsannaha urur goboleedka igad hal daloo cambaareeya ma aragtay marka laga reebo jamhuuriyadda daqsiga ismaaciil cumar geelle maye maxay kenya u cambaareen weyde maxay etoobiya u cambaareen weyde taasi waxay ku caddaynaysaa inaan waxaan ka tirsannahay ba is jirinbu inay wixba raalli kenya soo gurguurinayo oo kenyana ayaduna ictiraafka soo wado etoobiyana hadda 4 sac keeni doonto siyaasadda muufaysiga ee maraqda iyo ku hay iyo rukubdhe waqtigeeda waa soo gabagabo ummadda soomaaliyeed waxaan le qofkii damiir leh mabaadi kastood aaminsan tahay aaminsan wey xasan gurguurta iyo kooxdiisa